madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ku soo dhawow. marka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn. tusaale ahaan waa xubin farsamo oo loo sameeyay inay farsamada doorashooyinka ay hayaan. haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 kugu baxaysa ikhtiyaarka inaad aqbasho inaad diiddo adaa iska leh. fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo cariishan ku dhisaa dhagaxan ku dhisaa shaqadaas asagu male. guddigaas hawshiisii waa qabsaday yaan la dhibin xaliimo yari dhibka ha laga daayo talada annaga tashanayna. maalinkii tala naga soo baxdo haddana ayagaan ku celinaynaa ama kii bedelaan ku celinaynaa. sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xigxigto ama la iska shakiyo waa gardarro. qodobka ee ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir. gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeenna iyo qaabdarradeenna labaduba ay ka muuqdaan. nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabtii maxaa soo xarooda war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa. in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute ka la iskugu yimaado waa nasiib darro. magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado. dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii. waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara. matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo. Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno. ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay. gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen. waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxba laga mitixgelin. maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas. dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladaa la dhisay waa ka warqabtiin. wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro. horaa looga socday. nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh. gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka ma goosanayso. laakiin waxa ka suurtagal ah idii sheegi waxa ka suurtagal inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culays noqotaya 60 sanaan caasimadnimada soo haynay culayska hana laga qaado meel kale hal la geeyo. waxa ka suurtagal inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iya ka suurtagal. waxaa ka suurtagal in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo. arrinta Banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhan injury time in mar walba injury time ka la iska warsado.
arrintaas waxa laga bedelo caasimadaas waa wada leenahay aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanay maqaam aan ugu raadinno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh